labada xisbi mucaarad wadani iyo wicid oo maanta warbaahinta la hadlayay ayaa labadooduba waxa ay sheegeen in ay aqbaleen gogashii uu fidiyay madaxweyne Muuse Biixi si ay ugu wada xaajoodaan caqabadaha hortaagan doorashooyinka Somaliland. Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wicid uu barbar taagan yahay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Engineer Faysal Cali Waraabe oo ku hadlayay afka labada xisbi ayaa waxa uu yiri inay inaga dhamaato arintaas oo boog xun inagu ahayd. waxaan leenahay arintaasi waa hambalyeynayna waa idin soo duceynayna in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ummadda faamiliga qalbigooda Ilaahay siiyo beerkoodana barcasku mariyo. waxaad moodaa waxaan iska nahay doqon nasiib badan oo inuu hadda Ilaahay subxaanahu wa ta'aala xaqii magaalada saay wanaaga arrin ugu socdaan gudidii soo gaadhay go'aankii xalkii commissionka iyo waa mahadnaqinaa dawladdii aqbashayna waa mahadnaqinaa dadkii taageera waa mahadnaqinaa. waxa weeye wax lagu faani karaa weeye waxay muujisay dhaqankeeni ahaa inaan inagu wixiina dhammaysano. waxaa aad iyo aad guul weyn inagu tahay iyadoon dadkii ajnabi ahay noo iman bulshada caalamku inaynoo wixiina dhammaysanay inaynoo yimaadaana wax lagu faani karo ay noqotay waana sunnihii aan naqaanay aan ku soo caanimaadnay. Soomaaliya waxay u baahan tahay inay socoto inay horumar keento u baahan tahay inay shaqo abuurto u baahan tahay dhalinyarteedu way ogtihiin niyad jab weyn baa ku dhacay way ogtihiin oo xamar bay ku dawarsadaan inta gashadaan calankii Soomaaliya ina garaacay ay naftu u geysay. waxa ka xumaatay niyaddii shacbigeena way ogtihiin maanta 80% guryaheena wax lagu ma kariyo dhaqaalihi hoos buu dhacay maharada way kaceen laana haddaanu wadanku aanu socon oo dawladdu shaqaynin oo dadku cays qabsan dee wuu istaagay wadanku. wuxuu wadanku fiican yahay in macaalid maxaafidba waxa danta guud laga wada shaqeeyo. waxaan maanta halkan ku sheegnay sidaan hore idin sheegnay inaan ogolaanay go'aankii oo ah furaha iyo horumarka iyo horsocodka dalkeena. madaxweynuhu waa kii gogasha soo sameeyey noo soo samaay invitation noo sameeyey bisha 14keedii waa taanayay ilaa arintan dhamaato la kulmayno. madaxweynuhu wuxuu ku celiyay inay gogasha fidan tahay. waxaan idin sheegnay inaan gogasha ogolaanay madaxweynaha doonaya la kulano kalana hadli doono sidii go'aanka la gaaray ee wada ogolaanay sidii loo hirgelin lahaa. taasaan maanta ku yeelnay shacabka reer Soomaaliland waxaan leenahay mar kale iyo mar saddexaad xaal baan dhisinay magaydaan la isku kiin dul qabsado magaydaan la isku kiin dul meeraysto. waxaa gaydaan in la idin shaqeeyo horumar la idin keeno اعتراف لدين كانوا ما كان شاء الله إن شاء الله تعالى waxaan diyaar u nahay inaanu dawladda wixii national issues common ground inaga dhaxeeyo difaaca dalka magaalada اعتراف doonista iyo horumarka kala shaqeynaan diyaar u nahay. waan la kulmay madaxweynaha. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.